kulantoyinka saaxiib soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegi doonaa ama ku falaqeyn doonaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in caawa gabi ahaanba isaga soo bixin deegaanka Awuurey ee gobolka Hiiraan. Deegaanka Awuurey waxaa maalmo xiriir ah dagaal culus ku dhex maray ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. kooxda Al-Shabaab halkaas 8 maalmood xiriir ay weerar rogaal ku soo qaadayeen balse ciidanka xoogga Soomaaliyeed kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya ay halkaas dhawr adeeg ku muujiyay jilbahan u aastay Al-Shabaab halkaas weerarada 8 maalin ku soo qaaday balse ugu dambeyn ciidanka xoogga Soomaaliyeed caaw halkaas way isaga soo baxeen wayna soo faarojeen haddana waxaa ku sugan deegaanka Awuurey ee gobolka Hiiraan kooxda Al-Shabaab oo halkaas 8 maalmood iyaga ku soo laalaabanayay nafurnimadooda. hadda deegaanka Awuurey waxaa ku sugan xoogga Al-Shabaab oo halkaas iyaga markii ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka soo baxeen gaaray. Awuurey markii hore Al-Shabaab kamaysan fogeyn meel u dhow ayay joogeen bacdama ay maqleen ama ay ka war heleen in ciidanka caaw halkaas gabi ahaanba isaga baxeen Al-Shabaab ayaa gudaha u soo gashay sidoo kale in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka caaw isaga baxaan furimihii hore gaar ahaan deegaanka Awuurey waxay noqonaysaa niyad weyn iyo dhaawac soo gaaray qarankii Soomaaliyeed sababtoo ah waxaa la ogsoon yahay in saakidan ugu dambeysay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo fariisan ku lahaa degmada Aadan Yabaal ay Al-Shabaab weerar 4 jiha oo qaraxyo ku bilowday ku soo qaadeen halkaasina ay Al-Shabaab ay la wareegeen taas oo wali Al-Shabaab ilaa hadda ay ka riminayaan degmada Aadan Yabaal oo ay saaki la wareegeen. si lamida caawana waxaa soo baxaya in Al-Shabaab ay gabi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Awuurey oo in muddo halkaas ayaga ay ku soo laalaabanayeen. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka maalmihii la soo dhaafay waxay dagaal adag kula jireen kooxaha Al-Shabaab iyagoo deegaano iyo degmooyin badan ka saaray balse ugu dambeyn Al-Shabaab ayaa hadda u muuqata in ay dib u soo rogaal celisay bacdama maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab dagaalyahanadii ka joogay qaybo ka tirsan gobolada Bay iyo Boqol ay isugu keeneen gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab in dagaalyahanadooda ugu badnaa ay isugu keeneen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaysa kadib markii Al-Shabaab halkaas lagu jabiyay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab gacantooda laga saaray. ayaa dib isu abaabul bilowday waxayna dagaalyahanadii ugu badnaa ay ka joogay qaybo ka tirsan gobolada Bay iyo Boqol isugu keeneen ugu dambeyn Al-Shabaab caawa waxay la wareegeen deegaanka Awuurey goor sii horeysay saakayna Al-Shabaab waxay gacan ku haynteeda la wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab sida dowladda federaalka gulufka ka dhanka ay u hayso ayaa iyadana waxay bilowday in gulufka dhanka dowladda federaalka ay ka bilowdo qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan taas oo Al-Shabaab maalmihii la soo dhaafay ay isku soo urursanayeen qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyagoo meelo badan iyo deegaano badan ka saaray balse ugu dambeyn Al-Shabaab oo dib isu soo abaabushay ayaa hadda waxay la wareegtay Awuurey iyo Aadan Yabaal. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in dagaalyahanada saaka Al-Shabaab ka tirsanaa ee weerarka qaraxyada ku soo qaaday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe laga sii warqabay taas oo keeni karta shaki weyn oo soo kala dhaxgala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishoodaba sababtoo ah maalmihii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu amray in askari uusan furmo hore dagaalka asagoo furin jooga uusan isticmaali karin taleefankiisa gacanta balse taas beddelkeeda loo ogolaaday in askariga uu isticmaalo gacmaha sida fooneeyaha sida u taqaanaanba balse mar labaatan waxay keeni kartaa inuu shaki soo kala dhaxgala guud ahaanba ciidankii furimaha hore ee dagaalka ku wada sugnaa. si kastaba Al-Shabaab caawa gacan ku haynta deegaanka Awuurey iyadoo wax dagaal ka dhicin way la wareegtay si lamid ah saakeena dagaal xoogan oo Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Aadan Yabaal waa ay kula wareegeen. ilaa hadda ma jiro wax war oo ama faahfaahin oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya balse goor sii horeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad jeediyay ama madal uu ka qayb galay khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in dagaal sidiisaba uu yahay marna ijibi marna aan ku jibiyo sida uu hadalka u dhigay isagoo ka warqaba in saraakiisha ciidanka ugu sarsareysay ay ku sugayeen furmaha hore dagaalka balse Al-Shabaab in saraakiil ciidan ama madax dowladeed ay ku sugeen furmo hore dagaal ay ku soo qaadaan saaki ugu maysan horeynin iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen qayb ka tirsan gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Masaajid Al-Guud oo gobolka Shabeellaha ka tirsan taas oo Al-Shabaab ay la wareegeen. si kastaba Al-Shabaab waxay u muuqataa inay xoojinayaan weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraanba balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacado socda waxaa laga rajeynayaa in uu ka falceliyo ama uu jawaab culus ka bixiyo deegaanada iyo degmooyinka Al-Shabaab saakay ay la wareegeen qaybo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. haddii inta ila soo gaarto waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ira channelka like iyo si aan u helno saaxiibada adigoo kale aad iyo aad u mahadsantahay.